libaaxu isagu mid u kala aabba yeela maaha ugaadhu ama ha yaraato ama ha weynaato hadda waxay gacanta ku dhigeen doofaar yar sidaa ay kuma aysan joogin iminkana waxay bilaabeen inay caydhsadaan oo ay soo qabtaan biciid weyn ama geri weyn geri baa la daba socdaa taatikiska ama shaxda uu libaaxa u degsan waa marka hore horta inay deeliyaan intuu carcartiisa qabo cid u dhowaanaysa iyo cid taabanaysaa ma jirto markuu cabbaar cararo baalkan waa daalaa markaas ayaa lugaha layskaga marayaa lugaha marka la qabto baalku si xun oo qaab darana buu taagan yahay oo kala sarraysa lugaha marka la qabto baalansigaa ka lumaya xataa iminka dabadii baa la qabtay dhulka ayaa laga soo jaray way isku dhammaatay dhiil dhan mar haddii dhulkala dhigtay shaqada intaa dheegaa qabsanay haragu bay kala baxayaan iminka waxay jidka u galeen loo dibadeed hayaamaysa tii hoggaamiye ahayd bay soo direen markay cabbaar taagnaatay lafeheeda u baqatay farabadnida iyo siigada looda markay aragtay idii baa dib u carartay xagga dambe laba kale ku sugaya oo libaaxya ah waa raxan libaaxya hadda waxay rabaan inay neef kala hadhaan loodan hayaanka olreedi mid baa ay qabteen wiili yar bay kala hadheen laakiinse loodan waxaa la yidhahdaa buffalo kay buffalo ayay yidhaahdaan waa loo aad u geesiyada way soo wada noqotay waa kuwaa ka riday weyshii yaraday qabsatay weyshii bay leeyiin soo kaco ciidanka raac weyshii nasiib wanaag cagaheeda ayay hadda ku soo istaagtay waana ay soo raacday hadda mar labaad ayuu libaaxi soo weeraray mar labaadna waa la caabiyey waxba laysaga tirin maayo loodan loo kaftamaysa ma aha hadda waxay u diyaargaroobeen inay qabtaan dibiga ay gaarka ula soo baxeen waa uu isku maray xagga horna mid baa ka taagan laakiinse si fudud ayaa markiiba dhulka loo dhigay mar waa kacay haddana waa laysugu tegey hareeraha laga maray xataa waraabayaalba garab ku siinaya maanta libaax inuu neefka dilo waraabayaalba xitaa daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantay haddii kalena lagu soo biirsay muuqaalada xiisaha badan leenalkan ku soo gudbir inaad qayb uga noqoto lana wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay